shir saddex maalmood u soconayay beelo walaalo ah oo khilaaf uu ka dhaxeeyay ayaa waxa lagu qabtay magaalada Port Elizabeth oo ku taala wadanka Koonfur Afrika waxaana munaasabadaasi ama shirkaasi soconaya muddada saddexda maalmood warbixintan inooga soo diray wariyaha Somali Channel ee wadanka Koonfur Afrika waa Cabdifataax Cali Samatar shirweyne lagu heshiisiinayo beelo walaalo ah oo saddexdii maalin la soo dhaafay ka dhacay magaalada Port Elizabeth ee dalka Koonfur Afrika shirkani oo lagu heshiisiinayo beelaha walaalaha ah ee reer Abdulle iyo reer Isxaaq oo ka tirsan Maxamed Zubeer kuwaas oo soo kala dhex gashay horguf xoogan kaasi oo sababay dhimasho iyo isqabqabsi badan gacan ku dhiglayaashii ka dambeeyay dilkani foosha xun ayaa la sheegay inay ka baxsadeen dalka Koonfur Afrika iyadoo beesha absame iyo adeerkooda ay cod midaysan ku ansixiyeen inuu dhamaaday dhibkii ka dhaxeeyay labadan beelood ee walaalaha ah haddaba waa kuwaana oday dhaqameedyadii mas'uuliyiintii madasha ka hadashay soo dhaweynaya halkan